إن waxaan hayaa nimcaan hilaac qabiilkiisa inama uu soo diray oo suldaanka u soo hanjabayna waan hayaa walaalayaal kullayba suldaanku waa wariye media uu gudbiyaa laakiin gadabuursiga dad wanaagsan iyo dad xun buu isku jiraan laakiin nimcaan hilaac kullayba qabiilkiisa warbixintiisa oo dhamaystiran ana hadayna siinay walaalayaal haddaba waxaan doonayaa nimcaan hilaac qabiilka gadabuursi horta waxaan ku bilaabayaa nimcaan hilaac xalay markuu daawaday fiidiyoogii aan kaga hadlayay uu ku gafay maxay ahaydeen gabadha la yidhaahdo buluug maygaab laakiin imika hadda la baxday samsam ayaan doonayaa horta wax yar inaan nila socodsiiyo intaan ka hor fiidiyooga nii shidan horta waxaan nii shidayaa suldaanka bari galbeedka iyo bartamaha africa qabiilka nimcaan hilaac iyo ama qabiilka gadabuursi haddaan idhaa maxay suldaanka yidhaahdeen barnaamijkaasaan doonaya horta wax yar nila socodsiiyo say soomaalidu ula socoto ama ogaato wax yar سلطان غنيون بريان واحد تبادل تنين كسوتشي قوميتا المكالديرية نيون مركز رقم كالدير ولا وضع لي ولا الشري لقيت عدك قربها ولا ولتشوجا راتك ولا وجوجا نيو حسام يسا إس إلالي ركاسرك فرح الله قال معها السمرون كي كل واحد موجود تشلي يركن رك وحوي لديك بحي أوجابين يجي آدم يونسكو رك العلوس ويان marka is ilaalinayo mid kale waxana lagu qorshe jiraa in subscribe afarta boqol subscribe haysatid in unsubscribe la wada yiraahdo lagaalana wada noqdo markaas is ilaalinayo subscribe taada iyo horumarkaaga tali beesha makal dheerani raaligelin bay ka rabtaa haddii kale waxa meesha ka dhaca magacaaga iyo sumcadkaaga ku haysa haddaba nimcaan wuxuu kasoo jeedaa qabiilka la yidhaha makaleere waxay yidhahdeen suldaanka 24 saac gudaheeda dad apologize ama raaligelin kusoo bixin weydo xalay meediyihii aan sii daayay way kasoo xanaaqeen makaleeruhu waa dad inta badan Ethiopia degaan waxayna la naasnuugaan ama ay la degaan dadka la yidhaahdo ogaadeenka haddaba nimcaan hilaac xalay markaan ka hadlay uu hawshii galay nimcaan hilaac telefoonkii wuxuu qaraacay ragga la yidhaahdo empire ku jira buu la soo hadlay wuxuu yidhi waxaan niga codsanayaa inaad ka saartiin anigu waxaan samaynayo ummadda bini'aadankii sababtoo tv-ga dadku waxa haystaan horta gadabuursiga waxba ka dhaadhacsan waxyaabo khaldana way ka dhaadhacsan tahay waxyaabo kale way ka gadabuursigu wuxuu haystaa empire of the world inay gadabuursi iska leedahay taasaan haddaba iniga jaahil jirayaa meeshan gadabuursi iskama leh haddaad runta iyo xaqiiqada doonaysiin meeshan meel gadabuursi ay leedahay maaha haddaad doonaysiin meel gadabuursi ay leedahay meel gadabuursi furta meeshan soomaali weyn baa iskale hawiyaa ku jira isaaq baa ku jira gadabuursi baa ku jira ciisaa ku jira laakiin ummadda inay meesha gadabuursi khalliga ay leedahay maaha walaalayaal horta taasaa iniga jaahil tiraya dadka ka soo hadlana gadabuursi oo khalliya maaha isaaq baa ka soo hadla gadabuursi baa ka soo hadla ogaadeen baa ka soo hadla waxa ka soo hadla dhammaan qabiiladu way ka soo hadlaan oo arminka way ku jiraan groupka laakiin ninka ugu weyn ee tv-ga iskale wuxuu joogaa ingiriiska waa nin la garanay oo caan waa ninka tv-ga iskale inkastoo ninkaasi kasoo jeedo qabiilka sharafta badan ee gadabuursi waxaan leenahay ninkaasaas kale laakiin dadka ku wada jira ama dadka matalan la jooga tv-gan dadku saasay u haystaan laakiin maaha gadabuursiga waxyaabo kale niga dhadhacsan haddaba gadabuursigii fariin bay soo direen waxay yidhahdeen suldaanka bari galbeedka iyo bartamaha africa makayleeru ku gafay gadabuursina sida makayleer ah maaha oo gadabuursigii jileecii maaha laakiin makayleeruhu waa dad halisa marka suldaankow 24 saac haddaad soo bixin weyda raaligelin waa lagugu daba jiraa isilaali waxaasay soo duubeen codkiisiina waa dhegaysateen wax yar haddaan ugu cesho wax yar sultaan غنيون بريان واحد تبادل تنين كسوتشي قوميتا
almakaldheeriya niyan markaas rag makaldheera waa la wada hadlay waa la shiray qurbaha waa lagula weliba makaldheerihii way shireen waxayna ka shireen suldaankay ka shireen horta suldaanku nin gabado maaha ama nin isqarqariyo maaha haddii uu suldaanku gabanayo ama uu isqarqarinayo intaasuu miidyaha ku jiraa mid baa ini odhan lahaa gadabuursiga aqoon baa aniigu laaban mid baa ini odhan lahaa nimcaan hilaac waa hal shaqsi weeye makaldheere hadduu shiro iyo hadduu meel fadhiistaba isaga u taalla wuxuu ka shiraya isaga laakiin nimcaan hilaac ninka la yidhaahdo uu galay waa adaana ka badbaadinayn hooyadaa baa ka badbaadinayn aabbaha baanad ka badbaadinayn cid kaleo ka badbaadin karta nimcaan hilaac ma jirto nimcaan hilaac buluuk makeup ninka la yidhahdo samsam inuu guursaduu doonayay isagu sida uu sheegaya laakiin samsam waxay sheegtay inuu guur soo qaraacin waxaan ku jiraa life baan ku jiraa wax yar saraniyo isagu blog baan saaraya anaga tag blog baan ku saarnay waxaan nii sheegayaa haddaba qabiilka gadabuursi si khaldan bay maskaxdoodu u shaqaysaa ilaahay wuxuu ka siiyey beesha isaaq baa ka dambaysa nimcaan hilaac waxaa eebeynaya waa isaaq walaalayaal haddaba beesha gadabuursi xaggan baaq waxaan uga dirayaa isaaq marka la yidhaahdo waa qabiil dhan weeyaan laakiin marka qabiilka bini-aadankaa hal shaqsi oo isaaqa hadduu soo qaata nimcaan hilaac maaha in lagu gafa beesha isaaq walaalayaal horta taasaa iniga khaldan midda kale nii sheegay waxa weyan gadabuursi haddaad tihiin waad degdegtiin degdega hal shaqsi hadduu wax galo waxaad tirahdeen qofkaasaa galay beesha gadabuursi suldaanku aad buu iniga oohiyey ama aad baad uga baqdiin sababtoo halka quru idhaahdo dhammaan gadabuursi oo dhan way shiraan oo suldaankay ka shiraan laakiin suldaankani suldaan saaad moodayn maaha ama suldaan lagu soo degdega maaha makaldheeraad jeedaa gadabuursi oo dhan aniga waxba igama qaadi karo mid kale nii sheegaya inta badan gadabuursi haddii hal shaqsi ama hal ka soo jeeda wax lagu sameeyo waxay wada yidhaahdaan dhammaan waxa naga dambeeya isaaq baa ka dambeeya filinka waar isaaqu waa qabiil maanta kula jaara oo adigana kuu dhow walaalahana weeyaan laakiin hal shaqsi hadduu nimcaan hilaac ka soo hadlay maaha beesha isaaq oo dhan baa ka soo hadashay wiil isaaq hadduu soo dhigay nimcaan hilaac uu yihi waxaasuu sameeyey maaha isaaq oo dhan baa ka hadlay horta taasaa iniga dhiman aqoonna waad leedihi inaad waxyar fahantiin baa fiican walaalayaal inaad waxyar fahantiin baa fiican dadkuna inaga daaya sababto waxay dadka odhanayaan dadkan aqoonta leh haddana marka la yidhaahdo waxa geystay waxa isaaq oo dhan lagu wada waxaynaya waa yar halis beesha isaaq sheekh iyo shariifa way leeyihin beesha isaaq iminka matalan dadku isku wada mid maha laakiin nin isaaqa hadduu ka hadlo nimcaan hilaac way jiraan gadabuursi badan oo nimcaan hilaac usoo baxaya ama nimcaan hilaac muxuu ahaa miidiyaha ka difaaci kara way jiraan laakiin beesha isaaq oo dhan in la caayo waa gunnimo weeyaan sababtoo ah beeldan qofku inuu naco horta waa yar dulnimo sababtoo qofka biniaadamka hal qof uu nici karaa laba qof shaksi qofku uu nici karaa laakiin markaad qofka aad beesha isaaq oo dhan la yidhaahda maanta waxaan arkaya rag gadabuursiya oo na soo wacaya ma nala soo hadlay waxay ku leeyihiin waxaan beesha isaaq baa ka dambaysa nimcaan hilaac beesha isaaq markuu ka baxay iyagaa ka dambeeya fajidan u laaqay walaalayaal nimcaan hilaac telefoonkiisii waan qaraacnay uu naga qaban waaya laakiin mar dambe uu soo qaraacay wuxuu ku leeyahay aniga waxyaabahaad igaga hadlaysiin ka saara markaa sheekada waxay caddaatay nimcaan hilaac inuu filinkan galay wifor nimcaan hilaac uu soo fadhiisan laha wuxuu odhan lahaa buluuka waxaanu soo jeediyey waxba kama jiraan buu odhan laha u fiirsada marka nimcaan hilaac waraabaha aamusan iyo waraabaha hadlaya waxa wax dila waraabaha aamusan walaalayaal horey baa loo maamaahay nimcaan hilaac waa ninka qura dhiig waxaa ku jira ethoobiyaana ku jira qofka hadduu dhiig ethoobiyaana ku jiro waa halis weeyaan sida qofka aad ula dhaqantid ama aad ula xaajootid waa halis weeyaan wuxuu kasoo jeedaa makaldheeru kasoo jeedaa qabiilka ugu xun gadabuursi buu kasoo jeedaa weliba etoobiya degaan qabiilka ugu xun weeyaan marka gadabuursi la yidhaha haddaba makaldheeruhu
waxay la caananuugaan ama ay naaska la jaqaan ragga la yidhaahdo ogaadeenka. waa halis weeyaan. haddaba ogaadeenku iyo makayleeruhu meel bay wada degaan oo meel Ethiopia la yidhaahdo, laakiin ha kala deegaanada ha u kala qaybsamaan. laakiin qofku hadduu gadabuursi oo dhan walaalayaal isma saarna. gadabuursi sharaf la jirta, gadabuursi waxaa jira Ethiopia dega, gadabuursi waxaa jira xaggan dega, laakiin gadabuursiga oo dhan isma saarna. nimcaan hilaac filimkan uu galay oo maanta wax la qarinaya maaha. weliba shiine culey oo nin wasangeliya wakaad arkaysid tuugnima haysata iminka shiine culey wuxuu sameeyey inuu isaguna fayskiisa lagu meereysanayo inuu jeediyu doonay. xalay layf uu soo galay runtii iyo xaqiiqadan uu sheegay. wuxuu nimcaan hilaac aroos buu uga baxay inuu guursado doonay ninka la yidhaahdo Blue Makeup. waa khariis weeyaan, mana dhalaya hadduu guursado muxuu ka cuni lahaa walaalayaal? wuxuu ka cunaya ma jirto. haddaba isagu wuxuu doonayay inuu nimcaan hilaac ku jeediyo, sababtoo hadda waxay ku jeedaa kamaradii Soomaaliya oo dhan. kamaradii waxa haystaa YouTube kasta waxa yaala balgala walaalayaal. yaa gadabuursi markaa wax ka badbaadin karaya? bal YouTube kasta gala waxa ku jira nimcaan hilaac. YouTube kasta haddaad gashiin waxa ku jira nimcaan hilaac. weliba nimcaan hilaac lama idhaahdeen, laakiin gabadha Samsam la yidhaahdo markii hore Fuaad baa la odhan jiray wiilka, laakiin khaniis buu noqday, qoomuluud buu noqday. marka isagaa soo dhigay macal heestan. nimcaan hilaac wuxuu leeyahay anigu ii qaaday. u fiirsada, wuxuu soo sii daayey ninkaas oo waxa uu ku samaynaya ilaahay yaab iyo fajac ku keenaya. meel kastana waad ka aragteen. haddaba gadabuursiga waxa ka khaldan mid baan u sheegayaa, sababtoo inkastoo dadka gadabuursi rag u hadlana way jiraan oo inta badan difaaca way jiraan miidiyaha, laakiin waxbaa ka khaldan. waxyaabo badan baa ka khaldan. suldaanka inaad wax yar ka fahantiin baa fiican. waxay niga khaldan inaan nii sheego. waxay niga khaldan qabiil hadduu soo caayo ninka niga mid ah, qabiilka dhan ha u jawaabina oo qabiil dhan ha odhanina qabiilka isaaq baa saasa, qabiilka isaaq waa yuhuud, qabiilka isaaq waa farakh, qabiilka isaaq isagaa waxaa samaynaya, qabiilka isaaq isagaa ka dambay. waxay noqonaysaa markaa jamac walaalayaal. waxay noqonaysaa jamac dad dhan oo sheekh iyo shariif ku jira in layska caayo. de markaa nimcaan hilaac waa hal shaksi weeyaan. halka shaksi gadabuursi oo dhan laguma caayi karo. u fiirsada, keligii baa wax geystay. nimcaan hilaac oo qura la caayaya, laakiin qabiilka gadabuursi yaa caayay? cid caayaysa ma jirto. qabiilka gadabuursi maanta cid caayaysa oo fadhiisanaysa ma jirto. laakiin waad soo fadhiisanaysa waxaad leediin. waxaan arkaya qaar badan oo kusoo qorqoraya beesha isaaq si xun u caayaya. waa ayaan daro wallaahi inaan beenii sheego. waa ayaan daro, meel xun bay niga gashay baasho. beesha isaaq saa doontiin isku naca, laakiin wiil ininka iniga mid a hadday hal qof uu soo qaato isaaqa inaad isaaq oo dhan wax ka sheegtiin aad baan uga xumahay. taasi waxay ayaan darro ku tahay. ininkana sharaftiina waxay ku noqonaysaa fajac bay ku noqonaysaa. ininkuna inaad fikirtiin baa fiican. nimcaan hilaac waa ay weeyaan uu galay sheekadan. runta iyo xaqiiqadan ku sheegay anuma baydhbaydho. nin wax ka baqana meey. nin boqol cod haddii loo soo duubaya nin la yidhaahdo waxaa shiraya qabiilkii gadabuursi oo suldaanka u shirayaan, nin suldaanku waxa uu joojiye meey. anu miidiyaha intaasaan ku jiraa. suldaanku anigu waxaan ka hadlo qabiil kaste waan ka hadlaa, waad la socotay. laakiin gadabuursi marka laga hadlo, gadabuursigu waxaad moodaa qabiilada kale inuu ka uqdadaysan yahay ama dee si kale waxyaabo kale ay ku jiraan. way gariiraan, way baqaan. maxaad ka baqaysa? hadal yaroo suldaanku indheedhada ka gubanaysa. anu maanaa nimcaan hilaac u geeya Blue Makeup? maya. maanaa nimcaan hilaac kuri soo duub Blue Makeup? maya. laakiin isaga ayaa iska duubay. isaga ayaa ka duubaya. way marka inaad suldaankow 24 saac gudaheed 25 saac gudaheed waxaan kaa sugaynaa apologize soo bixis walaal qabiilkii waad ku gaftay bababa samaroontii sharaftaad ka qaaday karaamada bo war waxaas waa been. suldaanku hadduu mar wax soo duubo ninka weligii wax ka raali geliya maaha. iyagunbaa dadku daala. ninkani waad aragteen qabiilo badan dhulku la galay, laakiin nin intuu soo fadhiistay yidhi qabiilkaasaan ka raali gelinaya weligii may dhicin walaalayaal. gadabuursi kabahay niga dhammaanaya, kabahay niga dhammaanaya. sababtoo ah inta badan anigu yurub dadka weydiiya, anigu tababar gooniyaan qabaa, dadkana weydiiya. kaadh baan haystaa anigu. kaadhkaa aan haysto qofka bili-aadanka dadka aan nii sheegaya ama dadka waxaad weydiisin dadka yurub weydiiya. waxaad ka tiraa suldaanka bari galbeedka barnaamij muxuu yahay? waan qabiil isaaqa.
qabiil ogaadeena qabiil gadabuursiya qabiil maxay ahaydeen majeerteena ayaan matalan waxaan ku kulannay Sweden bay ahayd maqaaxi Sweden dadka bilaadanki haddaba maqaaxida waxa loo fadhiyaa qabiil baa loo kala fadhiyaa wallaahi inaan beenii sheegin xagga waxa ku shiray qabiil isaaqa waxay ka shirayaan adu kala sheeg xaggan waxa ku shiray qabiil gadabuursiya waxay ku shirayaan kala basheeg xaggan qabiil majeerteena waxay ka shirayaan kala sheeg hawiyaha baanana ku arag dad waxa ka shiray laakiin dadka dhex galaan laakiin dad ka shiraya dadso qofka haduu iska yahay qof muxuu ahaydeenay wax dhibaato badan ay jirto waxa laga shiray aad bakaale gar inta badan haddaba ninba booroma iga soo qoraacaya ana ka qaban wax yar isug ninba haddaba badanka Soomaalidu waxay sheegtaa waxa laga shiray aad bakaale gar laakiin intuu suldaanku soo fadhiisto uu yiraahdo nimcaan hilaac oo xalay ka hadlay suldaanku yiraahdo waan raali gelinaya baabacada teemay ka soo baxayaan waa maya haddaba suldaanku saasoo kale u yahay nimcaan hilaac filinkan uu galay walaalayaal gadabuursiyo ama ka xanaaqa laakiin gadabuursiyo isaaqa iska daaya caydiisa iska daaya halka shakhsiga soo dhigay caaya laakiin isaaqana caayisi ka daaya antaas aan doodan lahaa kullayba qofka bilaadanka qofka haduu khaldan yahay walaalka in la qabtaa fiican hadii laga khaldan yahayna inaad qofka ka khaldan inaad ka qabatid baa fiican laakiin markaad xanaaqsan tihiin ee qof wax laga sheego in saaqo dhan aad caydin wayar waxay nagu tahay nacasnimo nagu tahay sababtoo maangaabnimo meeshii ugu sarreysay weeyaan sababtoo qofka bilaadanka waxa la odhanayaa dadkii aqoonta sheeganayay maanta qabiil isaaq oo maanta uu ku jiro sheekh iyo shariifba ayaa la iska caayaya ونمعان هلا قوم اللود وح لسه مية ويا يا الله عيا قبيلنا وقوم اللود وح لسه مية نمعان هلا أما يقول شعلو أما يقول نع أنا فهمت أي حقيقة ديبه أنا يقول وحن كهلا وسيدي ديوية لكن كليه واحد نقول له هنين هتوص لكن أنا بلوك بنصاري يسوق أروح أنك سوق واحد يرسل يا بلوغ يسوق ولا عليه نقتك أنا وأنا عقوف مركان كتير إنه يسوق على بلوغ بنصارة ولا يا واحد نيشة جيا رالي هذا بلوغ بنصاري قفكوا عن سكتورة صوته قفكوا فائدة مسؤول سيدة قفكوا مركان سوق على اللايف سوق على وحنا هي جرين بقول عليها صوته لايف كانوا يقصون حق الدنيا مركان بلوغ بنصاري رالي هذا مدبر نيشة جيا inta badan dadku isku wada mid ma waxaan arkay rag gadabuursiya oo ku soo kala jeestay ama isku nacay nimcaan hilaac waxa lagu sameeyay nimcaan hilaac dadka kama weyna nimcaan hilaac sagaal buu ku dhashay qofka ka weyn ma laakiin nimcaan hilaac gabadhan samsam ee fuaad markii hore ahaan jirtay qaniiska nimcaan hilaac filinka uu la sameeyay gadabuursi ama diida ama doona ولا ليه لأنه رنتنا ده ليش يجي حال أنت أنا سوق قلنا وانيجي كومتي أنا مركان سوق قلايو وحبان سوق قلا ولا ليه بيتك وحبان كل سوق قلا كبعدي بان سوق قلا نمعان هلا فيلن كان وقلاي كريه هذا بس سلوجو بتبادين كرا نمعان هلا وحن كوها يا يقلي قبضي وقبي الدارات إنه يكبح سطي المهي سين الله طوري وفرصة تذكر مريكا جوجو ويديه قد بورسيو وقراع واحد ترى نمعان هلا حكوك التنبيه انت عندك قبيله كلا اسك عاين او waxyaabo kala aad galin ba bal waxad weydiiseen in adeerkin nimcaan hela xaga uu ku dambeeyay oo kaliya weydiiya waxa la inii sheegaya in nimcaan hela ay gabadhii macaan oo qabay ee daraawiish ka soo jeetay dhulbahante ay ku ogaateen ninkaas in waxa sameeyay walaaliya u fiirsada nimcaan hela nin afgaaban baa la moodi jiray oo waxa la moodi jiray waxaan aanan sameeyay baa la moodi jiray laakiin nimcaan hela waxa la ogaaday inuu yahay ninka ugu xun fanaaniinta uqdadna ay ka buuxdo waliba waxa ka buuxda uqdada uu hayo hal qabiil buu hayaa uqdada weligii kama baxaysan ninkaas ama hal dhinta ma iska isaga dambigiisu raacaysa ama isaga raacaysa wax uu shaqaystay laakiin mid baan ii sheegaya nimcaan hilaac waraysta gabadhii dhulbahante way ka tagtay ilmihiisina waa u tuurtay war ma ka haysa xaga sad ay la soo fadhiisanaysa qabiilada ay war ma ka haysa nimcaan hilaac هذا gadabuursi haddaad tahay nimcaan hilaac qaraac waxaad tiraahdaa
nimcaan hilaac sidee tahay xaaladaada hadduu ku odhan wahayo gabadhii dhulbaantay markay aragtay anigoo Fu'aad make up la samaynaya waxoogaa wax ka baxsan anshaxa ayay gabadhii ii soo tuurtay gabdhaha daarood uma adkaystaan waxyaabaha dhacaya walaalayaal nimcaan hilaacna way ogaatay inuu sawirkiisu isaga yahay walaalayaal xabeenta loo sheegaya oo loo odhanaya nimcaan hilaac maaha waxaan ku tusayaa dadku siyaabo kale yidhaahdeen laakiin waxaan ku tusayaa dadku Soomaalidu ma waalna laakiin qofka bilaadanka waxa laga yaabaa hal qof inuu khaldamo laba qof inay khaldamaan oo yiraahdaan qofkaasi ma haysagi ama saddex qof ay yiraahdaan ma laakiin ummadan Soomaaliyo dhan ay tiraado nimcaan hilaac weeyaan oo hal qofna uu yiraahdo ma waxay soo kordhinaysaa ma laakiin nimcaan hilaac filimkan uu galay walaaliyaal ninka la yiraahdo block make up haddana isku bixiyay sam waa gabadh waa magac dumar weeyaan ninkaasi filimka isaga galiyay mooji wuxuu uga jeeday ninkaasi waa khaniis weeyaan laakiin filimka isaga galiyay wiilkaasi wuxuu ka soo jeedaa daarood buu ka soo jeedaa samsam block make up waa ma jeerteen baa lagu yiri laakiin ninkaasi isaga filimka galiyay oo ninka ugu wacan laakiin anigu waxaan u sameeyay ma garanay waxaan arkay gadabursi badan oo nimcaan hilaac aad u difaacaya oo meel kasta soo dhigayo waa nin wanaagsan ayaa walaalayaal inii diidan hadduu wanaagsan yahay ayaa inii diidan cid inii diidan maanta wiilkiina ma jirto walaalayaal uu wanaagsanaan karaa una xumaan karaa laakiin wiilkiinu maanta hadduu dabkii ku dhex dhacay oo dabkii la leeyahay uu ku galgalanaya maaha walaalayaal anigu waxaan diiday walaalayaal in qabiil dhan la iska caayo la yidhaahdo nimcaan hilaac qabiilkaasaa ka dambeeya isagaa waxaa ku sameeyey baha in waxaa la yidhahdan ka baqaya marka nimcaan hilaac waxaa ku jira dhiig waxaa ku jira Ethiopiana ku jira nimcaan hilaac gadabursi dhaba maaha weliba nimcaan hilaac waxaa ku jira gadabursigu siyaabo kale rag badan oo gadabursiya oo ila soo hadlay nimcaan hilaac nin weliba ku dhashay magaalada Boorama maaha wuxuu ku dhashay Ethiopia ku dhashay meel la yidhaahdo wuxuu ku dhashay aw baraka shayso la yidhaahdo lafaciisu ku dhashay lafaciisana waa meesha nimcaan hilaac iyo aasaaskooga ay iska leeyihiin una qabiil kale maanta lahayn nimcaan hilaac sida kale ha iska ahaado wiil Soomaalinimada jecel qof kasta Soomaalinimada jecel qof kasta waa Soomaali anu yaanahay Soomaali baana adigay daawanaya tahay Soomaali baad qof kasta waa Soomaali laakiin inta badan aad baan uga xumay kama qaban karo mid baan nii sheegaya inta badan waxaan nii sheegayaa qofka bilaadanku waxa uu geysto baa isaga jira bes kaliya laakiin nimcaan hilaac waxa ku jira dhiig Ethiopiana ku jira gabadhan samsam la leeyahay ee block make upna filimka uu la sameeyay ama diid ama dood qofkan aan ka qabanaya halo salaamu calaykum soo dhow inaad roog salaamay waa ka qaali soo dhow abganaad ka hadlaysan doonaya wax yar inaan ka hadlo adigu gadabursi baa tahay soo ma okay nimcaan hilaac filimkan uu galay gabadh gadabursina waa tahay qofka uu la sameeyayna qof Soomaaliya maaha qoomuluud buu la sameeyay sidoo arta meel kastana uu yaala media uu yaala waxaana ku aan buunbuunayna maaha ama wax inanka aan ku dhaliilayna maaha sidoo aragtaa inaad horta waxa weeyaan waan ku salaamay adiga umada kale meesha ku jirta maxaa ahaydeen horta waxa weeyaan wajigiisii oo sax ma lahayaa nin intan qaybtan uga eg inaagtu isku dhadhajinayso laba siyaabood baan u fasirayaa walaal soo waxaad garatay ma ku soco 460 qof ku daawanaysa ku soco labada siyaabood ee u fasiraya waxa weeyaan haddayba dhacdo horta lama arag lamana maqal hadday dhacdo way dhici kartaa iyo waxay ku dhici kartaa waxaan dawaa waxa weeyaan wax ma garan karaba waxaan ku tilmaamo dadkana way ku dhagdagtaa dadkana waa adiga arkaya 110 naagood iyo 110 nin baa daba ordayo may kabiye qashin iyo waxbay marisaa baa la yiraahdaa inankan inuu daacad iska ahaayo iyadu isku tuurtay saa u qabsanayso oo sidii qof salaamayo kale way noqon kartaa oo ceeb iyo fadeexad laga samaynayo waa hadday dhacdaba laakiin saanigu waxaan leeyahay ma baaha isagii sababtoo ah wallahi uma maxay ahaydeen uma difaaciyo samaroonimo horta kaalay fiidiyoga ma daawatay waan daawada fiidiyoga nin yaroo dhinac yar uga ego dhabarkeeda dambe qayb laga arkayo may isagu
nimcaan hilaac waxa uu samaynayo gabadha jidhkeega xagga dambe ayuu baasheenayaa uu la galay afkiisa la galay ma waxaad leedahay salaan hadday tahay saasa la isku salaami laha walaal dee maya wejigiisii ma baaha qofka xagga dambe maaha wejigiisii sannaga aragnay soo kameeriyaha yaala qofka xagga dambe walaal haaf buu uga egyahay ilaanta ilahay unta wuu isku wada ekaan karaan haaf buu uga egyahay walaal haafa uga ekaado ma diidani haaf buu uga eegyahay dadku soomaaliya maxamed oo dhan mid baan kuu sheegayaa haddaba mid baan ku weydiin lahaa badanka gadabuursiga waxay soo qorayaan waxaa ka dambeeya isaaq baa ka dambeeya gadabuursiga isaaq bay si xun u caayayaan saw khalad maaha in isaaqa la iska caayo oo qabiil dhan la caayo war isaaq in la caayana horta waa meel horta waa inagu gunnimo ma fiicna isaaq dee maxaaba laga caayay isaaq waa la wada yaqaanaay waa gartay saw samsam okay dhegeyso wiilkan markii hore wiil buu ahaa samsam minka waxaa la yidhahda fu'aad baa la odhan jiray laakiin minka samsam baa la yidhaha waa khaniis buu isku bedelay isagaa soo dhigay heesta mid baan ku sheegaya in yaran kaa saxo horta blue makeupkan naag baneerka iyo xalayna la cararayso ole waa daarood wixii xunba xaawaale lagama dhigi karo daarood anigu way dhalay laakiin way dhalayda uma difaacayo blue makeup waa hawiye horta sidiisaba waxay nii kala saarnaadaan waxaad garatay maaha xageed hawiye uga dhigta walaal ninkan hadduu yahay inankii wejigiisoo saxa hala keeno mid baan kuu sheegayaa blue makeup walaal waa la garanayaa waa nin daarooda weeyaan oo weliba majeerteena adi hadday majeerteen ku dhaleen waxaad soo weydiisay ma dhalin aniga ayaa ku dhalay ummadda nabi maxamed ee saraay dhalay majeerteen iyo ummaddan hadda miidiyaha cararaya ma dhalin okay whatever daarood waa ii daaroodun aniga okay iska daa taasi iska daa qofkii ku dhalo waa qof laakiin khaniiska ha keeno wejigii inanka ha keeno waa gartay wejigiisii oo dhammaystir xitaa lacala si walba dadku waa loo ceeban karaa laakiin ceebta ninku alla ceebayo unbaa ceebsamaa isagoo xaggeeda dambe maraya ayaaban oran lahaa wejigiisii oo caadiya way isku tuurtay laakiin maba aha inta how many people baa isku eg ilahay intuu uumay okay mid baan ku weydiin lahaa ma haysagi hawiye khaniis noqday adu ma aragtay weliga indhama saartay hawiye khaniis noqday weliga indhama saaray soomaali dadka ugu fiican weeyaan haddaba waa dadka haddaba soomaali ugu fiican bay ku jiraan walaal dadkoo dhan baa garanaya qofuu ka bi'i karaa walaal qofuu ka bi'i karaa iminka fi adigan ku weydiinayaa hal family oo meel ku nool baa hal qof oo qashina laga dhex heli karaa hawiye oo dhan hal qof looma ceebayn karo okay adu marka adoo gadabuursi waxaad leedahay nimcaan hilaac ma aha qofkan wallaahi bilaahi tallaahi buuna ahayn ma aha mana ahaan karo maba oranayo sinjiyo farac uma lihin adduunyada waan ka tilmaananahay laakiin lacalla haddayba dhacdana siyaabo kale loo geliyay laakiin wejigiisii oo kaamil ah keenta khaniisadu dhashay ee gidaafada okay aad baan kuu salaamayaa gabadha gadabuursi waa cadhaysantahay aad baan kuu salaamayaa walaalayaal inay gadabuursi ka cadhoodaan way tahay sababtoo ah nimcaan hilaac fanaankoogii buu ahaa laakiin walaalayaal ninka badda iskeena ee baddaysa soo dhiga ee weliba ninkii ugu weynaa khaniiskii ugu weynaa intuu xagga dambe ka maray nimcaan hilaac u fiirsada intuu xagga dambe ka maray ayuu baashaynayaa gebigiisaba nimcaan hilaac uu maqan yahay iyadaa ka duubaysa u fiirsada waxayna soo dhigtay in uu nimcaan hilaac uu kaga baxay guur uuga baxay u fiirsada walaalayaal annaku afkayga maan bedelayno laakiin waxaan ku tusayaa iyadoo hadlaysa oo kule dadku soomaalidii ma aaminsana ama ma qaadanayaan laakiin iyaga u taallaa bay tiri soomaali waa la garanaya inay waxba aaminayn laakiin bay tiri iyada u taallaa waxoogaa 20 daqiiqa walaalayaal waan ka baxayaa ballan baan leeyahay 10 daqiiqa dhiman waxaan ku tusayaa saan ku tusayaa eeg dadku ma aaminayaan bay leedahay just wait dhegeysa u kaasee waxaa ina tashaqaya soo nimcaan hilaac maha walaalayaal soomaaliyeed 470 iyo waxaad tihiin 5 qofe baleeg You cannot believe my hand. Let me give you one tip. Just quick. ilaah baan igu dhaasheeg bal nimcaan hilaac sida uu shaqeeyo walaalayaal eega ilaah baan waxay ku leedahay soomaalidu bay leedahay ma rumaysanayso anagu samsam baan ugeynaa sababta isaga isbedelay soomaalidu bay leedahay ma rumaysanayso inay waxaan nimcaan hilaac igu samaynaya laakiin isaga u taala
aan ma badbaadin kara walaalayaal gadabuursi haddaad wax badbaadin kartiin badbaadsada sababtoo ninkii wuxuu galay dabi buu galay suldaanow walaal ninka miidiyaha ugu cadcad waa adiga soomaaliya oo dhan maanta shaqir iyo maqrib waa lagu garanayaa walaal ninkaa adaa ka leexin kare ka leexi anigu kama leexin karo maxaan ka leexinayaa waad ogeydan shiine culi wixii ku dhacay shiine culi waa tuug weeyaan in adeerkii difaacay maanta maxaa haysta lacag buu weydiistay weliba nimcaan hilaac waxa uu samaynayo waa macsi weeyaan waa tii ugu weyneed waa nuuca la yidhi qofku hadduu gabadh uu qabo waa dad nuuca la yidhaahdo dhagaxa lagu dilo oo fiirsada yaa badbaadin kara ilaahay unbaa badbaadin kara laakiin hawiye khaniis noqday weligii lama arag walaalayaal runtaan idin sheegaya weligay indhaha maan saarin ninkana waa leeleeya waa hawiye waa khaniis wallaahi inaan indhaha saarin laakiin qabiilada kale way ku badan yihin laakiin hawiye waa ninkan waana khaniis weligay baan maqlin walaalayaal laakiin malaha dadku soomaalidu way kala ilbaxsayin ma garan karaan laakiin nimcaan hilaac waxaan leeyahay waad gashay gadabuursi balaa kaa badbaadiya haddaba taase khalaas khaniiskii ugu weynaa ayaad afka la gashay nabadgeliyo way ku dhammaatay sharaftaadii iyo karaamadaadii waxaad ku seegtay weliba gabadh kumaad seegin wiil waxaad ku seegtay isbedelaysa oo khaniis noqdaad ku seegtay haddaba inta aad leedahay gadabuursiyo mid baan ni odhanaya mid baan igaga tegayaa weligaa haddii hal iniga mida oo shaabuu ku dhaco oo dhulka lagala dego walaalayaal waxaad iska daysiin qura waxaad iska daysiin isaaqa caydiisa iska daaya intaasoo qura inii sheegi lahaa waa anigoo suldaanka bari galbeedka iyo bartamaha africa intaad daawanayseen aad baad u mahadsantiin walaalayaal guliga goboni baan igaga tegayaa ta kale inii sheegay waxa weeyaan weligaa nimcaan hilaac tan uu galay walaalayaal bal gadabuursiyow wax kale iska ilaaliya isaaqana hal qof hadduu soo qaato isaaqa inaad isaaq oo dhan caydin ininkan gundimay nagu tahay ceebna way nagu tahay isaaqu nimcaan hilaac kama xumo maxay nimcaan hilaac uga xumaanayaan shalayba hargeysa meesha kusoo shaabacay hargeysay ahayd walaalayaal meesha uu fan kusoo qabto kusoo bacarimay hargeysay ahayd mursal muuse darkiisin hargeysa kusoo bacarimay wakaasee booro muutago oo fankiisu kor u qaado walaalayaal isaaqu ininkunbaa ku wacad fura laakiin isaaqu way nii rooyen isaaqu aan markaan isaaqa eegay dadka kale isaaqa niga roon saasaa nigaga tegayaa beesha isaaqna waxaa leeyahay ka raalli hada gadabuursigu dhibaatada ay nii geysteen ama cayda ay nii soo geysteen anoo suldaanka bari galbeedka iyo bartamaha africa niga raalli gelinaya way khaldameen waxaa dhici karta fanaankii ugu weynaa fanaankooga nimcaan hilaac oo birta lagala degay oo isagoo khaniis fu-aad wuxuu ku samaynaya adyaabaysid ayaa lasoo dhigay marka inay xanaaqaan ama macal suldaanka usoo hanjabaan oo yidhaahdaan haddaad raaligelin soo bixin weydo ama abolojaysa soo bixin weydo birtaan kaala degaynaa iyaga u taalaa walaalayaal anigu nin raaligeliyo bixin ma yihi walaalayaal taasoo kale ininkunbaa igu habsaamaya guul iyo gobonimo qofka barnaamijka daadihinaya qof kale maha suldaanka bari galbeedka iyo bartamaha africa ballan baan leeyahay sidaa iyo nabad geliyo walaalayaal